abaarta maybuwa biyo yaraanta ka dhiyaas dhulka ama roobkii la filaday oo la waayay taasoo dhaxal sidii beeraleyda iyo xoolo dhaqatadii Soomaaliyeed inay rajo dhigaan biyo golka beerada lahaayeen ama biyo iyo baadkii ay xoolo aban lahaayeen dhibaatooyinka kale dadka sababnoodu karaan iyo waliba la macneeyay markii ay badata gooyowka ama xaalufinta kaymo dhirta salan hel dhuxul ama dhul beeradow walibana arintaasi awaaqib xumo ka ee deegaanka oo halaaba ama soo xumaada taasoo sheenas deegaankii oo baaba gabi ahaantiisba iyo waliba nabad guurka dhiyow caraadi lama biyo sifeelan isticmaalan waliba sawaase tayadii biyo oo xumaata ama la waayo gabi ahaantiisba dhibaatada abaareed ee Soomaaliya waliba ku bilaabatay hab maamul xumo oo ka jirtay dawladihii dalka hogaamiyay sanado badan soo dhaxal sidii in dalku u gal dagaal sokeey qax iyo jahawareed usan horseedii waxyaabo xasiloona darada siyaasadeed dalkan ka abuuriya ee sababtun ku ee bilaaw in abaar dhiidahaan soo ku weyn nabadgelyo la'aanka dhiyaas dalkii lama aqoon yar iyo mas'uuliyad xumo saddex cadaalad dar iyo musuqmaasuq baahi afar dagaalada ka fado hogaaminta dalka oo mabda'an ka salaysnayn iyo shan awoodiyo fikirkii guud ee bulshada oo ka eedanay dawladnimada iyo maamulka oo la kala qaybsaday intaas oo dhan waliba hilmaansiina walka gobashadii ama ka hortagii abaaro biyo yarida joojinta jarida dhirta dhuxulku sameysada iyo ilaalinta deegaanka iyo walaalamite intaas oo dhan waliba horseedii oo ku eeyeen in la waayo horumar la deerow iyo dadkii aqoonta lahaay oo dalkii ku roori